إسلام وجيرتان كباهي حكمة محمد كيني وقيد الصلاة صون سقادو لبيحيو حشكولو waxaa barnaamijka Daris uu soo gaarsiiyay dugsiga Ilay Secondary School barnaamij 20 iskuul loogu talagalay bisha Ramadaan in ay ku tartamaan heerka fahamka iyo xawaaraha akhriska af Soomaaliga ujeedada ugu weyn ee barnaamijka Daris uu ka leeyahay tartankan waa dhiirigelinta akhriska si gaar ah dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa kaalinta koobaad waxaa gashay Safa Kayse Umar kaalinta labaad waxaa galay Mustafa Maxamuud Ali kaalinta saddexaad yaad u malaynaysaa inuu galay ma inan mise inan war ma inan baad doonaysaa mise inan kaalinta saddexaad waxaa galay gashay maye Tasliin Maxamed Gaaxnuug aad bay mahadsantihiin maanta waxaanu joognaa dugsiga Saraylays magacaygu waa Cabdiraxmaan Muuse Ismaaciil waxaan ahay maamulaha dugsiga Saraylays waxa maanta nala jooga tiim ka socda Daris barnaamijka akhris qoraalka ee barnaamij tartan ayaa halkan ay noogu qabteen waxa ku tartamayay 16 arday waxaana ku guuleystay 3 arday saddexdaas waxay la tartami doonaan dugsiyo kale oo 20 ku dhow waan u mahad celinaynaa barnaamijka Daris idil oo hibada sawirka ku tartamaysa marka idil waxaan u doonayaa in ay sawirto 2 nin oo la gidamay